tartan koobka kubadda cagta oo lagu xuseeyay gaashaanla sare ahliyay Axmed Teerso isla markaana ay ku tartameen laba koox oo ka dhisan magaalada Jidda ayaa lagu qabtay garoonka kubadda cagta ee Amiir Maajid ee magaalada Jidda. koobkaasi uu soo qaban qaabiyay gudoomiyaha jaaliyadda Soomaaliyeed ee magaalada Riyaad ayaa waxaa munaasabadii koobkaasi ka soo qayb galay gudoomiyaha guddiga isboortiga ee ururka Ismaaciil Naale, gudoomiyaha jaaliyadda Soomaaliyeed ee magaalada Riyaad Injineer Awkar Sheekh Cabdiraxmaan Yaaqshiid, tababarayaasha labada koox, taageerayaal iyo marti sharaf kale. waxaana kooxaha ku tartamay koobka ay ku kala ciyaarayeen xulalka LLBBJ iyo FC Degadaha. waxaana labada koox ay soo bandhigeen ciyaar aad u xiiso badan oo ay la dhaceen daawadayaashii ciyaarta daawanayay. waxaana wareegii hore ciyaarta lagu kala nastay 1-1 halka wareegga dambe ay waqtiga ciyaarta ugu soo idlaatay 2-1 oo ay ku gacan sarisay xulka LLBBJ. hase ahaatee daqiiqada dheer oo ciyaarta lagu diray waxaa xulka FC Degadaha u suura gashay inay shabaqa ku luuxdo goolkii bareejada. waxaana ciyaartu ay ku soo gabagabowday barbardhac 2-2 waxaana labada koox LLBBJ iyo FC Degadaha la dhex dhigay rigooro. waxaana ugu dambeyntii rigooradaasina ku soo baxday xulka FC Degadaha. waxaana sida ay ku soo gabagabowday kadib ciyaartaasi waxaa halkaasi si wadajir uga hadlay jaaliyadda Soomaaliyeed ee magaalada Riyaad Injineer Awkar Yaaqshiid iyo gudoomiyaha guddiga isboortiga ee ururka Ismaaciil Naale. xafladda caawa sharafta leh oo aanu talagalnay halyeeyga Soomaaliyeed ay ku geeriyooday magaalada taariikhiga ah ee Goday asigoo ku dagaalamayo ummadda Soomaaliyeed. waxay sharaf u tahay ummadda Soomaaliyeed ama dhalinyarada loo taagan inay ogaadaan taariikhda oo leeyahay Axmed Teerso. waxaana loo baahan yahay nin walba oo Soomaaliyeed oo taariikh ku leh waddanka in la xasuusto, la soo saaro taariikhdiisii, laga sheekeeyo waxa uu ahaa si ay